marka waa inaad meeshan bedeshaa oo ku qorataa wadanka aad ku nooshahay hadii Afrika meeshan ku qoranta inaad jigjiga ku nooshahay inaad Muqdisho ku nooshahay in macnaha aad Addis Ababa ku nooshahay waxyaabahaas de meeshan ku qoranta Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh saaxiib al soo wada meel booda faahduunida ka joogtaan channelka adaawanisa waa Nunu Academy saaxiib yal maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay inaad wax badan ka ogaato Facebook page qaabka kala duwan ee lacag lagu sameeyo marar badan channelkayga waan ku soo gudbiyay Facebook page anoo tala iyo tusaalooyin ka siinayo hadda ka horna muuqaalan idin sameeyay waxa idin kugu sheegay inaan shuruudii wali gaarin laakiin maanta waxa rabaa saaxiib inaan ku tuso anoo shuruud buuxiyay qaabka shuruudan u buuxiyay iyo waxyaabaha adeeg lagaaga baahan yahay qaabka aad ku sixi karto hadii Facebook-gaagu uu Afrika ka sameeysan yahay iyo waxyaabaha soo dhan ay muuqaalkan kula wadaagi doona because dhalinyarada badan ee message-ka ay soo qorto waxaan ku arkaa inay leeyihiin Facebook-gooda waxa loo soo qoraa resides in eligible country waxaad ku nooshihiin wadan aan lacag laga sameyn karin marka saaxiib yaal maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay inay idin la wadaago qaabka cilada ugu bixi lahayd waxyaabaha lagaaga baahan yahay sameeysaad cilada ugu baxdid shuruud lagaaga baahan yahay qaabka waxa waaye payment-gaad u setup gareyn karto iyo wax walba oo ku saabsan Facebook page ayaa maanta muuqaalkan ka hadli doona marka soo dhawaada saaxiib yaal fadlan haddii channelka cusub tahay subscribe sar sidoo kale muuqaalka la garee channelkan waxaynu ku soo gudbinaa waxyaabo badan oo kamid ah qaabka kala duwan ee online-ka lacag lagu sameeyo qaasatan Facebook page-ka YouTube-ka TikTok-ga sidoo kale waxaan ka marnayn muuqaalo goos ah oo aan casharo kaga hadalno sidoo kale waxaan ka marnayn eleterka Facebook-ga iyo si guud wax walba oo technology ku saabsan ayaan channelkeena kaga hadalnaa fadlan haddii channelka cusub tahay marka la soo dhawow kamid noqo saaxiibada channelkayga ku xiran aad iyo aad u mahadsantahay marka sidii balanta ahayd saaxiibayaal waxaan toos u tageynaa marka Facebook page-kayga Facebook ayaan sida u galayaa Facebook profile-kayga horta waa ku mahadsantiin dhalinyaro fara badan oo ayaa soo follow gareeya Facebook-gaygan caadiga isticmaalo Facebook-gan aan aniga isticmaalo waa Facebook-ga shakhsiga ah ee aniga iska leeyahay marka haddii aad wax su'aalo qabtid waxa way waad igala soo xiriiri kartaa waana igu weydiin kartaa wax su'aalo aad qabtid iga soo follow garee oo ila soco insha Allah haddii aad wax su'aal qabtidna waxa way waan kaaga jawaabi doonaa insha Allah marka saaxiib yaal hadda Facebook maaha waxaan u socdo Facebook-gayga caadiga maaha waxaan u socdo waa page-kayga marka waxaan rabaa inaan page u bedelo oo macnaha page-kayga tago marka koowaad calaamadaas ayaan ku dhufanayaa kadib saa u jeedin Facebook page-kayga waxa ku qoran Nunu Academy kan labaad waay kaas ayaan ku dhufanayaa ka markaan ku dhufto saaxiib yaal qaabkan ayuu u soo baxayaa marka Facebook page-kayga qaabka marka u soo bax saaxiib yaal geeskaas ayaan ku dhufanayaa waxaan rabaa marka saaxiib yaal inaan intuso shuruudaha aan buuxiyay qaabka marka shuruudaha aad buuxisid oo Facebook-gaaga u ekaanayo iyo dhammaan waxyaabaha lagaaga baahan yahay marka waxaan ku dhufanayaa saaxiib yaal xaggaas ay ku qoran tahay professional Facebook dashboard saa u jeediyay marka saaxiib yaal meeshan waxyaabo fara badan baa lagala socdaa oo qaabka oo Facebook-gaagu macnaha uu yahay iyo progress-kiisa iyo levelada uu kala maray waxyaabahaas lagala socdaa marka meeshaas maaha meeshan u socdo meeshaas ku qoran tahay monetization if you are eligible explore ways to earn money haddii aad macnaha gaartay darajada Facebook lacag laga sameeyo qaab fara badan oo Facebook lacag ugu sameyn karto furo ayaa lagu leeyahay marka taas ayaan click ku dhufanayaa taa markaan ku dhufto saaxiib yaal saa u jeedaan meeshan waxa ku jira add on reels waa reels inaad lacag ka sameyso bonus waxa la dhahaa qofka waa waxaan kulli hadda tan koowaad tan labaad waa invite Facebook-ga ku soo invite gareynay marka shuruuda gaartid baa lagu soo invite gareyn marka shuruuda hadii aan ku dhufto meeshan wax shuruuda ugu majid laakiin iyaga invite ku soo diray hadii aad gaarto oo ku dhahayo waxa way reels lacag waad ka sameyn kartaa marka saaxiib yaal ka soo socota waxaan kale u baahanahay amplify your earnings meeshaas kale ku qoran tahay bonus-kana waa ayaga invite gareynay laakiin waa bonus adiga dadka dheeriga ay ku siinayaan oo waxa way si toos ah lacag Facebook aad ugu sameynayso live ads kan waa qaybta shuruudda ee aad adiga shakhsiyan buuxinaysa ee lagaaga baahan yahay way haddaan ku dhufto aniga waxa waaye shuruudda lagaaga baahan yahay qaarna waan gaari qaarna maan gaarin marka saa u jeedan waa tan live-ka ah tan live-ka waxa lagaaga baahan yahay marka koowaadba have been viewed at least 600,000 minute views waa in 600 oo kun lagu daawado ciyaar ma taasay saa u jeedin hal shuruud baan ka buuxiyay shuruudaasna waxa waaye in macnaha 5 public hours ay ku jiraan YouTube-kayga midda saaxiib yaal tan koowaad ama tan ugu muhiimsan ee waxa waan muuqaalkina ugu talagalay ee ani shuruudooda buuxiyay waa tan ay ku qoran tahay Facebook Instagram ads hadda meesha saa u jeedid waxa ku qoran unfortunately your profile has not been approved to use Instagram ads aniga Facebook-gaygan shuruuda uu buuxiyay
maalin dhawid ayaan codsaday oo adi ilaa 8 maalin ka hor ah laakiin xalay ayay iga soo diideen message ka soo direen waxay ugu dhahan waana ku xunahay wali Instagram ads kaaga laguma fasixi karo ama profile kaaga Instagram ads looma fasixi karo macnaha page kaaga waxba looma fasixi karo marka mar labaad waxaad soo apply gareysaa 3 November marka la gaaro soo apply garey bay ugu dhahan marka saaxiibayaal markaan codsaday kadib baa message kan soo diray laakiin adiga hadaad cusub tahay dhammaan waxyaabahan tik baa lagu saaraya korkaasna waxa kaaga soo baxay meel ay ku qoran tahay set up ama in set up garey meel ay ku qoran tahay ayaa ku soo baxaysa laakiin waxa isweydiinaysaa anoo Afrika joogo seen shuruudii ku gaaray baa isweydiinaysaa waa maxay yeelay xitaa hadaan 60,000 aan la imaado shantii muuqaal aan sameeyo 5,000 followers ama 10,000 followers aan la imaado wili shuruud adag baa jirto dhalinyarada ku gudbi laayihiin taasna waxa waaye waxa ku qon resides in eligible country waxa degan tahay wadan aan lacag laga sameyn karin marka su'aashaas ina isweydiinayso waan dareemayaa laakiin insha Allah si fudud baan kaaga jawaabayaa waxaana rajaynayaa muuqaalkiigan marka dhameysto kadib adigana ood maalmo yar oo kooban aad joogtid inuu adigana isixi doon saaxiibayaal meeshaas qaabkan ku buuxiyaan idin sheego ka soo laabo markaan ka soo laabto Facebook iyo profile-kiisa aan ku dhuftay Facebook sa profile-kiisa u jeedid meeshaan waa meelka waxaad ka arkaysaa wax walba oo profile ka ku saabsan ayaad ka arkaysaa marka waxaad ku dhufanaysaa xaggaas meesha ku qoran tahay edit public details edit garey public details ama xogyaha iyo meelaha ku nooshahay waxyaabaas edit garey ayuu ku leeyahay marka saaxiibayaal saa u jeedid meeshaan aniga number Ethiopian baa igu xiran saa u jeedid laakiin address-ka iyo waxyaabahan oo dhan Germany ayay yihiin marka aad rabtid in waxa waaye xogtaada ama Facebook-gaaga in loo diiwaan geliyo inuu ku nool yahay qof dibadaha joogo ku nool yahay inta maaha meesha bedelayso meesha waa bedelaysa laakiin meesha ugu muhiimsan inaad bedesho lagaaga baahan yahay waa profile-kaaga maxaa yeelay profile-ka waa meesha Facebook-ga laga dhaxsamay hadii profile-kaaga uu diiwaan gelisan yahay Afrika Facebook-gaaga uu dibadda u diiwaan gelisan yahay xitaa wax lacag ma sameeynis marka saaxiibayaal waxa ku qasban tahay in profile-kaaga caadiga inaad meeshan timaadid meelahan iska saxdid saa u jeedid aniga waxyaabahan meeshan waxa igu qoran Leafis Hamburg inaan ku noolahay magaalada Hamburg ee wadanka Jarmanka markaan meeshan aan address-kayga bedelay in address-kayga saxay ee Leafiskaas aan ku qortay Hamburg wax walba way ii hagaageen 10 maalin kaliya suuy wax walbana way ii hagaageen marka waa inaad meeshan bedeshaa oo ku qorataa wadanka aad ku nooshahay hadii Afrika meeshan ku qoran tahay inaad jigjiga ku nooshahay inaad Muqdisho ku nooshahay in macnaha aad Addis Ababa ku nooshahay waxyaabaas de meeshan ku qoran tahay wax lacag haba yaraatay ma sameeynis marka meeshaas waa inaad bedeshaa ku qoran tahay Leafis intaan ka bedelaya marka waa isweydiinaysaa meelo badan baa laga bedeli karaa saaxiibayaal maxaa yeelay waxan waa Pios-ka iyo public detail-ki waxyaabaas baa hadii aan profile-ka galo ama detail-ka guud aan galo hadda saa u jeed aniga meeshaas Leafis ay ku qoran tahay Hamburg ayaa iigu diiwaan gelisan oo waxaan ku noolahay wadanka macnaha Jarmanka magaaladiisa Hamburg ayaan ku noolahay waa in marka aan safe dhaha marka saaxiib hadii meeshan iska sixi weydo meeshaad ku nooshahay wadankaad ku nooshahay iyo waxyaabahan hadaad profile-kaaga ka sixi weydo Facebook-ga wax lacag kama sameynaysid maxaa yeelay waxa lagu dhahayaa waxa degantahay wadan lacag laga sameyn karin marka saaxiibayaal xaggaas imow profile-kaaga bedel profile-kaaga marka badasho wadan dibadda ka dhigo lambarka walaalkaaga ama meelaha joogo dibadda meesha geli Facebook-gaaga dhan wuxuu noqonayaa Facebook waxa waaye dibadda laga leeyahay oo hadda ka arkaysa kiisa u jeedid waxa ku qoran Leafis in Hamburg meeshan dadku way dhayalsadaan badana hadii meeshan ay aad dhayalsato oo meeshan aad bedeli weydo waxaan ku sheegayaa Facebook-gaaga wali ciladaas way taagnaanaysaa laakiin meesha marka badasho 10 maalin wax ugu badnaan 10 maalin ilaa 15 maalin unbaa sugaysaa waxa arki doontaa Facebook-gaagi oo meesha Leafis waxaan rabaa Facebook-gaaga meesha ku qorneed resides in eligible country ay isbedeshay oo ay isu bedeshay waxa waaye meel macnaha lacag laga sameyn karo ama Leafis eligible country ku qoranta ama waxaad ku nooshahay wadan lacag laga sameyn karo marka saaxiibayaal shuruudaas sidaas ayaan ku buuxiyay maxaa yeelay waxaan arkay dhalinyaro fara badan oo message-ka WhatsApp-ka iga soo diray oo dhahay ustaad meelaha waan gaarnay shuruudaas naga dhiman maxaan sameeysaa marka beddelkii qof walba kali ugu jawaabi lahaa waxa jeclaystay si public ah dhamaantiin inay idinku ugu jawaabo marka waa rajeynaya intaasna inaad fahanteen marka Facebook-ga qaabkaas ayaad ku sixi kartaa sidoo kale muuqaalada Facebook aad soo dhigayso waa inaad iska ilaalisaa hadii muuqaaladaada ay badan yihiin copyright ama copyrighted content way kugu adkaanaysaa waxa waa inaad lacag ka sameyso Facebook waa meel ay xaaladeeda adag tahay waana meel loogu talagalay in waxaad adiga leedahay ku soo gudbiso marka waxaadan adiga lahayn iska ilaali shuruudahana saas u buuxi kadibna
qaabka set up-ka loo sameeyo insha Allah muuqaal gooni ayaan ka sameyn doonaa hadda anigu waan dhaafay oo maan dhawt ma iska hilmaamay muuqaal kamaana sameyn laakiin Facebook kale oo shuruudiisa buuxiyo ayaan isagana ka soo sameyn doonaa qaabka waxa waaye aad u set up gareynayso marka insha Allah ila dhamaadka dalana soo gaartay fadlan muuqaalka like sar channelka subscribe dheh waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xig assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh